wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta ayaa soo qaban qaabisay barnaamij lagu aqoonsanayo dadkii gacanta ka geystay sidii uu guul ugu soo dhamaaday shirkii labaad ee isbeddelka cimilada Afrika. Barnaamijkan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiradda qorsheynta iyo horumarinta Dr. Fesum Asafa oo khudbad ka jeedisay ayaa sheegtay in shirkii labaad ee isbeddelka cimilada Afrika uu ahaa mid lagu xaqiijinayo sida ay uga go'an tahay ka jawaabista saameynta isbeddelka cimilada. Waxa ay sheegtay in shirkan uu ahaa mid guul ku soo dhamaaday si loo tuso caalamka in Afrikaanka ay safka hore kaga jiraan sidii xal wax ku ool ah looga gaari lahaa isbeddelka cimilada. Wasiiradda ayaa sidoo kale sheegtay inay tahay hab lagu xoojinayo awoodda Afrikaanka inay si wadajir ah uga jawaabaan caqabadaha isbeddelka cimilada. Opportunity to help shape Africa's unified voice on climate action, sustainable development and green growth, while correcting the often misleading narratives that portray Africa merely as a victim of climate change. Ugu dambeyntii Dr. Fesum Asafa ayaa waxa ay sheegtay in dowladda Itoobiya ay ka go'an tahay in ay guushan u adeegsato si kor loogu qaado hoggaanka Afrika ee shirarka caalamiga ah ee cimilada. Together, you have not only ensured the success of the summit, but also strengthened Africa's collective capacity to respond to the climate challenge and seize the opportunities of a green and resilient future. Shirkii labaad ee isbeddelka cimilada ee Afrika waxa uu ahaa mid muhiim ah oo muujiyay sida Afrika ay isu abaabulayso si wadajir ah uguna jawaabayso saameynta cimilada ee dunida ka jirta. Itoobiya waxay door muhiim ah ka qaadatay shirkan iyada oo muujisay dalkeenu in uu diyaar u yahay inuu noqdo hormuudka Afrika ee shirarka caalamiga ah ee la xiriira cimilada iyo horumar waara. Waxaan ku faanayaa in guusha shirkan ay tahay mid ka dhalatay wada shaqayn dhow oo u dhaxaysa hay'adaha dowladda, khubarada deegaanka iyo bulshada rayidka ah. Itoobiya waxay muujisay hoggaan dhab ah, waxaana go'aankeena cad yahay inaan sii xoojino dadaalada lagu yareynayo saameynta isbeddelka cimilada lana dhiso awoodaha gudaha ee Afrikaanka si ay xalal waara ugu keenaan mustaqbalkooda. Guushan waxaan u aragnaa tallaabo lagu xoojinayo kalsoonida Afrika iyo codkeeda meelaha go'aanada waaweyn lagu gaaro iyadoo Itoobiya ay safka hore kaga jirto hoggaaminta dadaaladaas.